بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قميص أي سو قليسو تضبية طبنك بشا جون سنتك لبكن لباتن يلح أو كوبهجن لبدا بشا محرم سنتك كن أفر بقول فرتن يسيديد تاريخ ذي هجرية كسو دو هذا مركله إيا برامجكي قبانها قضبدا ندين كبوها إننا وحا كمدا. So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about. وترام أو تشيدينيا هذا الله إسنافسن أو نبض يعلاد إسقوتشره أو لحريرة إيران إسقو سيدو كلا قري إنو تشره قلاف أرمها قار أي سكدي ديهن نتياهو لنا عكره مدحوينها أمريكا كأيا سعد وشاقي إن أرمها جنتالها إيران أي أوتال ودبدا خليجك إن يكره الله إن إيران لكن قعنا يكجيسن دونان waxaa warbaahinta caawa loo soo gudbiyay nuxurka 14 qodob ee ay isku afgarteen Iiraan iyo Mareykanka haddaba qodobadan rasmiga ah ayaan u dul istaagi doonaa mid hogaamiyaha Xisbullah oo isna sheegay in dagaalkii bariga dhexe Iiraan ay ku guuleysatay isla markaasna hubkooda aysan dhiibi doonin ugu yaraan 2 qof oo lagu dilay iyo tiro kale oo lagu dhaawacay weerar gordhow إسرائيل كجيستي جدا غزة. شيكada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay ruushka oo xeelad yaab leh laakiin goon ah u isticmaalaya inuu kaga ilaaliyo gawaaridiisa dagaalka Ukraine diyaaradaha droniska ee ay isticmaalayaan. Dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa. barnaamijka qubanaha soo dhawaada markala daawadayaal si aad ula socoto ona hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo Lubnaan gaar ahaan xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan ururka reer Lubnaan iyo Israa'iil maanta wararka waxaan idinkugu soo gudbinay Israa'iil oo qiratay 5 askari oo hor leh in lagaga dhaawacay weerar Xisbullah u adeegsatay diyaarad drone haddaba wararkii ugu dambeeyay amurahani haddii aynu eegno xogayaha guud ee ururka Xisbullah Sheikh Naciim Qaasim ayaa jeediyay qodbad dheer oo uu kaga hadlay xaaladda gobolka xiriirka Lubnaan iyo Israa'iil iyo mustaqbalka ururkiisa kadib heshiisyadii iyo xabad joojintii u dambeysay Sheikh Qaasim ayaa ugu baaqay dowladda Lubnaan iyo dhinacyada siyaasadda inay ka faa'iideystaan marxaladda cusub ee ka dhalatay heshiisyada gobolka si loo gaaro natiijooyin waaweyn gaar ahaan in ciidamada Israa'iil laga saaro dhulka Lubnaan wuxuu carabka ku adkeeyay in heshiis kasta oo mustaqbalka lala galo Israa'iil uu ku koobnaan doono damaanado amni oo labada dhinac ah isagoo si cad u diiday qorshe kasta oo ku saabsan hubka dhigista ururka Xisbullah Qaasim ayaa su'aal geliyay ujeedada wadahadalada diblomaasiyadeed isagoo sheegay inaan Israa'iil lagu siin karin siyaasad ahaan wax ay ku guul dareysatay inay ku hesho dagaal iyo awood military dhanka kale wuxuu sheegay in Xisbullah ay fulisay 3,185 howlgallo military intii uu socday dagaalkii duufaanta Al-Aqsa iyo furimihii la xiriiray taas oo celis ahaan ka dhigaysa ku dhawaad 30 howlgal maalintiiba sida uu sheegay dagaalamayaasha Xisbullah waxay beegsadeen 518 gaadiid military oo Israa'iil ay leedahay 85 dayuuradood waxaana ay soo rideen sida uu sheegay 12 dayuuradood oo ah kuwa aan duuriyaha lahayn 12 ah droniska 4 marwaxdood leh Qaasim waxa sidoo kale uu sheegay in ugu yaraan hal diyaaradaha qomaatiga u kaca ee Israa'iil ay leedahay waxyeello ay soo gaartay halka ciidanka Israa'iil ay gaarsiiyeen qasaaraha 1347 askar dhimashay dhaawac loo geystay wuxuu ku adkaystay Xisbullah inay sii wadi doonto iska caabinta inta Israa'iil ay ku sugan tahay qaybo kamid ah koonfurta Lubnaan
xagga marayka Gaza haddii aynu eegno Israa'iil waxay sii wadaa weerarada kala duwan ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta telefishinka Al Jazeera ayaa goordhawita baahiyay in 2 qof oo Falastiiniin ah la dilay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen maqaaxi ku taal wadada Al Rashiid ee deegaanka Al Mawasi ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza muuqaallo laga soo duubay goobta weerarka ayaa muujinaya diyaarad aan duuliye lahayn oo drone ah oo Israa'iil ay leedahay oo gantaal ku dhufatay goob ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo ku sugnaa maqaaxida ku taal xeebta Al Mawasi ila caafimaad ayaa xaqiijiyay in 2 qof oo meyd ah iyo dhaawacyo badan la geeyay cisbitaalka Nasir qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa lagu tilmaamay kuwa halis ah taasi oo sare u qaadi karta tirada dhimashada wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saac la soo dhaafay 2 qof lagu dilay 5 kalena lagu dhaawacay weerarada Israa'iil ee ka geysatay jidda Gaza sidoo kale wasaaradda waxay sheegtay in tan iyo markii uu dhaqan galay waxa loogu yaro heshiiska xabad joojinta bishii Oktoobar ee sanadkii hore tirada dhimashadu ay gaartay 1,005 qof halka 3,157 qof ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale burburka dhismayaasha laga soo saaray 784 qof oo meyd ah dagaalka Israa'iil ay ka wada marayka Gaza tan iyo Oktoobar 2023 ayaa sababay dhimashada in ka badan 73,000 oo qof iyo dhaawaca 173,000 oo kale sida ay sheegayaan mas'uuliyadda caafimaadka ee marayka Gaza waxaan u gudbaynaa gordhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo laba calaynaya marna colaad ka hadlaya marna nabad ka hadlaya Iiraan dhankeeda warbaa ka soo yeeray sidoo kale waxaan caawidii soo gudbinaynaa sir rasmi ah waxa u soo baxay heshiiska Iiraan iyo Mareykanka 14 qodob ee la isku afgartay ayaan mid u dul istaagi doonaa yaa meesha ku dulman yaa se u muuqda inay gacanta sare leeyihiin sheekadu ugu dambeysana way noo soo socotaa laakiin aynu ku hakanno soo dhawaada marka la daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qobanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube Facebook Twitter ama X iyo Telegram warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waajibiyaan oo ka dhigo ehelkaaga wararka waa hagaag 800,000 qaybta YouTube-ka waxa ka dhiman dhowr kun waa inaan gaarsiinaa insha Allah maalmaha foodo inagu soo haya haddii aad ku cusub tahay hadda ku soo biir qaybta YouTube-ka waa hagaag waxaa goordhow idin soo gudbin doonaa 14 qodob ee lagu isku afgartay oo qodob aan u dul istaagi doono laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegay inuu jeedinayo hadallo iska hor imaanaya marna colaad marna nabad ka hadlaya haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay ee uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka G7 ee ka socda dalka Faransiiska madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan la saxiixi doono maalinta berri oo Khamiista ah ama maalinta xigta ee Jimcaha isagoo ku nuuxnuuxsaday heshiiskaasi mid xaqiijinaya dhammaan wasiirada dalka u dhigaya ujeedooyinkii Washington ay doonaysay inay gaarto Trump wuxuu sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ahaayeen kuwo aad u adag isla markaasna Mareykanka uu Iiraan u sheegay in uu dib u bilaabi doono duqeymaha haddii heshiis aan la gaarin wuxuu farta ku fiiqay in muddadaasi loo adeegsaday dhamaystirka faahfaahinta heshiiska iyo la tashiyada lala yeeshay saaxiibada ugu dhow ee Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale qiray inuu jiray khilaaf yar wasiirada dalka u dhigay oo kala dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku saabsan arrinta Lubnaan Trump wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuu Netanyahu ka dalbaday in uu muujiyo dulqaad iyo dabacsanaan badan isagoo intaa ku daray inaan loo baahnayn in dhismo dhan loo burburiyo mar kasta oo lagu tuhmo inuu galay xubin ka tirsan Hezbollah waxaan aad uga xumahay xaaladda Lubnaan ayuu yiri Trump oo sidoo kale tilmaamay in Israa'iil qaadan karto tilaabooyin ka taxadar badan kuwa hadda jira Trump wuxuu sheegay in faahfaahinta heshiiska Iiraan uu kala hadlay hogaamiyaasha dalalka G7 kuwaasi oo uu sheegay
inay si weyn ugu faraxsan yihiin heshiiska la gaaray. waxaa sidoo kale uu tilmaamay in heshiiska uu horseeday dib u furitaanka marinbiyoodka Hormuz isla markaasna uu ka hortagay sii socoshada duqeymaha iyo qatar weyn oo dhaqaale. si kastaba ha ahaatee heshiiska cusub wuxuu sheegay inuu ka hortegayo in Iiraan ay yeelato hub nuclear. dhanka Iiraan, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in sii socoshada joogitaanka ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ay si cad uga hor imaanayso heshiiska isfahamka ee dhowaan la gaaray, sida wasaaraddu ay sheegtay, kaas oo ka kooban 14 qodob. Iiraan ayaa xustay in Lubnaan 3 jeer lagu sheegay heshiiska, iyadoo carabka lagu adkeeyey in wadahadallada siyaasadeed ay ku xiran yihiin hirgelinta ballanqaadida oo ay ku jirto joojinta dagaalka iyo bixitaanka ciidanka Israa'iil ee Lubnaan. Tehran waxay sheegtay inay la wadaagi doonto Mareykanka wadahadallo socon doona 6 maalmood laga bilaabo maalinta Jimcaha. Waagaag haddaba waxaa warbaahinta loo soo gudbiyey 14 qodob ee la isku afgartay. qodobadaas ayaynu mid mid u dul istaageynaa haatan. qodobka koowaad, waxaa si degdeg ah u dhaqangalaysa xabajoojin joogto ah oo dhex maraysa Mareykanka iyo Iiraan iyo xulafadooda dhammaan furimaha dagaalka oo ay ku jirto Lubnaan. qodobka labaad, labada dhinac waxay ixtiraamayaan madax banaanida iyo midda dhuleed midba midka kale, mana faragelinayaan arrimaha gudaha ee dhinaca kale. 3, heshiis kasta oo kama dambays ah ayaa lagu gaari karaa 60 maalmood gudahood, waxaana muddo dheer lagu kordhin karaa ogolaanshaha labada dhinac. qodobka 4, Mareykanku wuxuu si degdeg ah u qaadi doonaa xanibadaha badda, waxaana si buuxda loo dhammaystiri doonaa 30 maalmood gudahood. Iiraan waxay si tartiib ah dib u soo celin doontaa isu socodka maraakiibta. Mareykanku sidoo kale wuxuu ciidamadiisa gaar ahaan kuwa ku dhow gobolka kala bixi doonaa 30 maalmood gudahood marka heshiiska kama dambaysta ah uu dhaqan galo. qodobka 5, Iiraan waxay damaanad qaadaysaa in maraakiibta ganacsigu si xor ah oo ammaan ah ugu kala gudbi karaan gacanka Bershiya iyo badda Cumaan muddo 6 maalmood ah, iyadoo isu socodka caadiga si buuxda loo soo celin doono 30 maalmood gudahood marka la nadiifiyo miinooyinka iyo caqabadaha kale. qodobka 6, Iiraan iyo Cumaan waxay ka wada hadli doonaan maamulka mustaqbalka iyo habraacyada marinbiyoodka Hormuz, iyagoo la tashanaya dalalka gobolka isla markaasna raacaya qawaaniinta caalamiga. qodobka 7, Mareykanka iyo saaxiibadiisa gobolka waxay samayn doonaan qorshe horumarineed oo dhaqaale oo ka badan 300 bilyan oo dollar oo loogu talagalay Iiraan, iyadoo faahfaahinta fulintiisa lagu heshiin doono 60 maalmood gudahood. qodobka 8, dhammaan cunaqabataynta saaran Iiraan ayaa lagu qaadi doonaa jadwal lagu heshiiyey oo ay ku jiraan cunaqabataynta qaramada midoobay, tan hay'adda IAEA iyo kuwa Mareykanka ee tooska ah iyo kuwa dadbanba. qodobka 9, Iiraan waxay dib u xaqiijinaysaa inaysan samaysan doonin hub nuclear ah. kaydka uraniumka la tayeeyey waxaa lagu maamuli doonaa hannaan ay labada dhinac ku heshiiyaan ugu yaraan, iyadoo laguna qafiifinayo gudaha dalka, iyadoo ay kormeerayso hay'adda IAEA. mustaqbalka kobcinta uraniumka iyo baahiyaha nuclearka waxaa lagu go'aamin doonaa heshiis kama dambays ah. qodobka 10, xaaladda hadda jirta waa la ilaalin doonaa ilaa heshiis kama dambays ah laga gaarayo. Iiraan waxay joojin doontaa isbeddel kasta oo ku yimaada barnaamijkeeda nuclearka, halka Mareykanku uusan soo rigi doonin cunaqabatayn cusub ama ciidamo dheeraad ah uusan keenin gobolka. qodobka 11, Mareykanku wuxuu si degdeg ah u bixin doonaa kana dhaafi doonaa Iiraan cunaqabataynta qusaysa shidaalka, waxyaabaha laga sameeyo iyo adeegyada la xiriira bangiyada, caymiska, maraakiibta iyo ganacsiga. 12, hantida Iiraan ee la xayiray ayaa loo ogolaan doonaa in la isticmaalo iyadoo la raacayo habraacyo lagu heshiiyo, waxaana taageeri doona dhammaan ruqsadaha iyo ogolaanshaha lagama maarmaanka ah ee Mareykanka. qodobka 13, waxaa la dhisi doonaa guddi wadajir ah oo kormeera hirgelinta heshiiska isfahamka iyo heshiis kasta oo dambe oo la gaaro.
qodobka 14aad wadahadallada heshiiska kama dambaysta waxay si rasmi ah u bilaaban doonaan marka qodobada muhiimka ee heshiiska la hirgeliyo waxaana heshiiska ugu dambeeya lagu ansixin doonaa qaraar waajib ku ah oo ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay halkaas ayay arrintu taaganta nuxurka waxaanu ka qaadanaynaa 3 qodob may 4 qodob horta arrinta Lubnaan in dhinac la saarayo ama Israa'iil ciidankeeda kala baxdo ama ha joogtay heshiisku wuxuu dhigayaa xabajoojin Lubnaan qayb ay ka tahay ciidanka laga saari doono qodobka kale muhiimka wuxuu yahay meesha horta lagu soo daray arrinta gantaalada Iiraan waxay tiri arrinta gantaalada gorgortan ka galayno heshiisna ma lagu darayo mana laga hadli karo hadda caaw muxuu yiri madaxweynaha Mareykanka arrinta gantaalada anagoo kala shaqeynayna wadamada khaliijka Iiraan kala hadleen haddana wuxuu leeyahay cid walba way haystaa gantaalo yiri maxaa diiday Iiraan inay haystaa iyaguna gantaaladooda Iiraan buu difaacaya waxa kaloo meesha ka soo baxay ciidanka Mareykanka Iiraan waxay dalbatay in laga saaro gobolka hadda heshiiska waxa ku qoran Iiraan ayaa gaarkeeda hadda gaarkeeda maxaa soo galaya Kuwait baa soo galaysa Bahrain baa soo galaysa Qatar baa soo galaysa Sacuudiga soo galaya Imaaraadka Carabta soo galaya waxa kaloo ku jira qodob aad u muhiim ah 300 oo bilyan lacagtaasi meesha ku jirta ayadana Iiraan in la siinayo magdhow dib u dhis waxaasi oo dhan arrinka marinka Hormuz Iiraan go'aanka ila iskale gacanteena ku haynaysaa ammaan ahaan lacagta iyo waxa ay qaadanaysaa waxay kala shaqeynaysaa Oman arrinkaas laga wada hadli maayo heshiiska marka waxa lagu tilmaamay inuu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhiiqada lagu hayo inuu kala baxayo oo uu leeyahay mar kaliya meesha horta aan ka baxo kuma soo laamaaya ma dhici kartaa daban in la isku dhigo wax walba suurtagal ninku siray wax ku sheeg way Soomaalida hore u tiri waynu arki doonaa marka arrimahaas wixii ka soo kordha waa hagaag haatan waxaynu u gudbaynaa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabeyn jirnay aanab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen imika waxaan eegaynaa sheekada ku saabsan Ruushka oo bilaabay xeelad la yaab leh oo gawaaridiisa dagaalka ee ciidamada uu kaga ilaalinayo diyaaradaha droniska iyo weerarada ay geystaan ciidamada Ukraine horta xeeladan ma xeelad cusub si halkan ay kaga muuqata gawaaridan dagaalkii labada adduunka ayaa la isticmaali jiray laakiin Ruushka hadda ayuu bilaabay xeeladan ciidamada Ruushka waxay bilaabeen inay adeegsadaan farsamo qarin ah oo la yiraahdo midabka dameer farowga taas oo markii ugu horeysay la isticmaali jiray intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka si ay uga difaacaan gaadiidkooda military weerarada dayuuradaha aan duuriyaha lahayn ee Ukraine ee ku shaqeeya sirdoonka macmalka ama waxa loo yaqaan AI-ga sawirro lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya gaadiidka Kamaz iyo Ural oo lagu rinjiyay xarumo madow iyo cadaan ah oo u eg dameer farow ujeedada midabkan ma aha in gaadiidka la qariyo balse waa in lagu jaha wareeriyo nidaamka AI-da ee aqoonsada bartilmaameedyada farsamadan waxaa sameeyay sanadkii 1917 farshaxankii ciidamada badda ee Britain Norman Wilkinson si looga adkeeyo in maraakiibta quuse ee Jarmalku ay ogaadaan jihada iyo xawaaraha maraakiibta saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in midabkan cusub uusan ka hortagi doonin weerarada diyaaradahooda si kastaba haatee khubarada ku takhasustay sirdoonka aqliga samayska ah ayaa aaminsan in farsamadan si ku meel gaar ah ay u yareyn karto waxtarka droniska ee AI-da ku shaqeeya inkastoo Ukraine ay sidoo kale adeegsato hawlwadeenno bini'aadan ah oo si toos ah u haga diyaaradaha weerarka geysta waaga inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qodobanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir